مالك الربا الربا لو أبورو إلهي سبحانه وتعالى وترترى قفك عذابكم وسيسريا حدوصل إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كيرين سيدا وحا مالك وكو كصبيو أو ربا كو شغينيو حدوصل إلهي وتوبت كيرين قفك سوى كو عذاب مضنيا وعوضها يا الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلهي سبحانه وتعالى مالك الوك الربا الله وترترى marka waxa weeyaan maalka waxa u dambeeya qofku maalkiisu inuu baaba'o isaguna ku cadaabato waxa marka looga badbaadi karo oo riba waxa weeyaan looga badbaadi karo waa inuu qofku cilmi yeesho oo ribadii barto amwaasha ribowiga ah iyo waxa weeyaan sida la isaga ilaaliyo qofku inuu barto ayuu uga badbaadayaa maalin baa waxa dhacday waxa weeye gabar baa wax u keensatay dukaanle 8 milyan oo shilin Soomaali ah dukaanlihi u dhibatay waxay tir isarif dukaanlihina waxa uu yiri waan ku sarifay isagoo lacagtii aan siinin muddo ka bacdi waxa weeye sarifkii baa raqiisay oo wuxuu tagay waxa weeye milyan 400 boqolkii dollar islaantii way timid waxay tiri kaashkii aan ku dhiibtay niyow isagiina waxa uu yiri anigu maalinka aad dhiibtay ayaan ku sarifay maalikii baan ku sarifay hadda waxaad ogaataa ninka lacagta gabadha ma uusan siinin kuma uusan wareejin iyaduna waxa weeyaan waxay tiri aniga wax ma isiina waa maya aniga lacagtaydan kaa rabaa marka lama doodeen doodna ma dhacdeen haddii cilmi loo leeyahay isaguna uu garanayo iyaduna marka waxa weeye ay garanayso lama doodeen buuquna ma taagnaadeen waxa keenayana waxa weeye waa cilmi la'aanta maalin walba riba dhexda looga jiro suuqyadeennana waxa weeye maalin walba la arkayaaba ha noqoto kuwa sarifka jooga ama ha noqoto waxa weeye ganacsiga laftigiisa marka amwaasha ribowiga ah qofku inuu barto hadday noqotaa waxa weeye kuwa jinsiga iska leh oo asnaafta waxa weeyaan wadaaga inuu garanayo hadday jinsigu isweydaarsadana inuu waxa weeye garanayo marka waxa weeye amwaashu waxa weeye waxyaabaha la kala gadayo hadday noqdaan sida waxa weeye dahab iyo dahab oo kale waxay leeyihiin shuruud loo shardiyo qofka laga rabo inuu barto way dhacdaa gabdhaheennu inay suuqa dahab geeyaan oo ay tiraa gabadhu dahabkan waa igu duugoobaye dahab kale ha la igu bedelo $50 waxa weeye waa ku darayaa ama $100 oo kale haddana iska xirato وانا waxa weeye ribo weeye waxa uu dhahayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskii muslim oo cibaada ka wariya nabiga sallallahu alayhi wasallam الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هي وحضها يا نبي صلى الله عليه وسلم حضينا غطاء إلا يسكوئي من الذهب لقو قليو oo waxa weeye gabadhu ay wadato dahabna ay rabto waa inuu waxa weeye dahabkaas noqdo mid isiman oo waxa weeye isku mid ah waa inuu waxa weeye noqdo mid waxa weeye siman oo haddana isku garaam ah oo aan waxa weeye la kala badinaynin haddana uu noqdo yadan biyadi noqdo gacanta la isku geliyo laakiin hadduu noqdo waxa weeyaan mid asnaaftiisu ay kala duwan tahay sida waxa weeyaan ذهب يا دولار أو كله مركا وحوي الله ما شردنا يو إنه نقضى وحوي يا الله ما ضب إسلعك الله ما شردنا يو ولا كلام ذكره صادر لكن وقتها مركز ذهب يا دولار أنت وحوي الدولار لقى ذكره أو وحلا أركره كلئة هل جرام الذهب $100 أم $100 لكن وحوي وحلا الربا إلى نقطة يدا بيد إن جعنت الأسوق لنا يو حالك الأسوق رجينا يبه إن مركا الاسكو ريجيو حدين لكن نقطة الذهب والله ما دي waxa weeyaan ciladina wadaagaan jinsiga iska leeyihiin waxa loo shardinay in noqdaan laba isku mid ah isla haadaan dollar iyo dollar $100 jeexan suuqeena ku badan tahay in waxa weeyaan la yiraahdo boqolkan jeexan $100 igu bedel $5 aan ku daro $5 aan ku daro waa ribo waxa way banaanka taala labadan waxa way dollarka iska leeyihiin
haddana cilladii waxa weeye way wadaagaan waa in aan la kala badinin oo aan mid lagu darin siyaada lagu darin haddii laakiin la sarrifayo ou ninkaanuu yidhaha boqolkan iga sarrif inta uu doono ku sarrifi karaa hadduu doono waxau dhihi karaa anugu waxaan kaa siisanaya kan 2 milyan oo dhihi karaa laakiin $5 kugu darayaa $100 kale isii waxa weeya waa ribo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa timir u keenay bilaal timir barni la yidhaahdo ayuu suuqa uga soo waxa uga keenay waa xadiidkii waxa weeye abi saciid al-khudri weeyaane timirtii marka u keenay ayuu nabiga alle ku yidhi sallallahu alayhi wasallam bilaalow timirtaanu intay nooga timid markaasuu ku yidhi nabiga allow timirtaan waxa weeyaan timirtii noo taalla radiga ahayd ayaa waxaan qaaday laba waxa weeyaan suus markaasaa noogu soo beddelay timirtaan waxa weeyaan barniga ah si adiga aad u cunto soo u cuno nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku yidhi nabiga sallallahu alayhi wasallam awah caynu riba ribadii laftigeedii weeye tan waa ribadii laftigeedii sidaa marka ha yeelin wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yidhi sidaa ha yeeline haddii waxa weeye ay dhacdaba inaad waxa weeye u baahataba timirta radiga ah gad iibi markaad gado lacagta ay gacanta soo gasho timirta kale ku gado oo waxa doonta waxa ku iibso timirta kale ku gado marka gabadhu dahabka ay suuqa geyn markaa oo ay dahabka ay rabto waa inay kan iibido dahab kale marka ay nuucay doonta ku iibsato ama kan iga celi $100 kugu darayaa ama ninkan uu yidhaahdo waxa weeye lacagtan iga sarrifee waxa weeye ku imaan $100 igu beddel waxna waa kugu darayaa laakiin haddii ay kala beddelaadaan ajnaasta ama asnaaftu ay waxa weeye kala beddelaadaan sidii doonaan loo kala geli karaa waa la kala iibsan karaa oo qofkan waxa uu dhihi karaa $100 waxaan kaa siinaya 3 milyan oo shilin Soomaali ah laakiin waa inay noqoto oo shardi waxa uu ah waxa way xuluul taqaabud in markiiba la kala wareegayo qofkan lacagta uu taqabsado kana qabsanayo ama in labadooda mid dib loo dhigayo oo waxa weeye ay dhacdo in mid wax dib loo dhigo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka digay xadiidka abi saciid al-khudri wala tubi'u minha ghaiban binajis ila lagu gadin waxa weeye shay ghaib ah shay jaw aan lagu iibinin qofkii weyn uu yiraahdo waxa weeye 20 milyan kaash isii ama 26 milyan kaash isii dollarka hadda waan ku keenaya waa ribo ogow taaso inaan waxa weeye labadii shay mid maqan mid jaw aan lagu iibin labadii shay in waxa weeye lagu kala baxo waxa ribo looga badbaadi karaa waxay tahay ho iyo ho haan in la isku dhiibo taas lagu badbaadi karaa suuqeena waxa weeye sarifkana maanta waa aragtay